Hoggaanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdulaahi Tuulax ayaa sheegay in degmooyin ka mid ah kuwa galbeed ee gobolkan Banaadir ay ka socdaan howlgallo amniga marka lagu xaqiijinayo sidoo kalena markaasi looga hortagayo falalka amni daro ay markaa ka fuliyaan al-shabaab. Waxa uu markaa sheegay in dhowr jeer degmooyinka galbeed ee gobolka Banaadir laga soo tuuray hoobiyaal marka lagu weeraray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Muqdisho hase yeeshee maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga diyaarsan yihiin in ay weeraradaasi ka hor tagaan. waxaan kormeerkeena caadiga ka soo bilownay saldhigga wadajir ilaa saldhig galbeed oo hadda shirka jira ku qabanayno. intaas waxaan ku soo marnay howlgallay kormeer oo socod ah oo lagu korgaleeno nolosha iyo wada shaqaynta ciidanka iyo shacabka iyo amniga guud ee degmada wadajir. degmadan waxay ka mid ahaan jirtay degmooyinka ugu amniga badan magaalada. ولنا وكترنا إني كمتها وأرجع حسده إنسان كحوق بالنين ستة مركز لو حوجيو هدي دولاري مادين أما علو فرصة كده حياة دقمنا نحدي ده حنوت رجلنا إن بوحنا كمالحس ميودن بي حجري دقوين كقلبين قيمة كمده راسو تورتورة إربارك يمالا كلام انتبه sidoo kale waxa uu gudoomiye Tuulax hadalkiisa inta uu ku daray in laamaha amniga Soomaaliya looga baahan yahay in ay dardar geliyaan howlaha sugidda amniga isla markaana ay ka hor tagaan cid kasta oo markaa liddi ku ah amniga. waxa uu markaa u mahad celiyay ciidamada howlgallada ka wada magaalada Muqdisho. أنا أؤمن دلالي كجران عيدنك يلامها قيبتان قلبي يكون عيدنك بوليس كب حلو بهاي إن سوى الجيرة لسه كاشدو مالها عدو فرصة كهلا يو مالو والبا و كاد بعتين هايو مالها مهم كوا شعبك يوجد هندل كودن عيد كستو مركا توهم كجرو أما عيد كستو أنو أرجنا إني فضلين يسوح كستو أمن دركينه وحن كقاعدنا تلعبو sharciga waafaqsan hana ka waantooda leenahay. hadalkan ayaa waxa uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdulaahi Tuulax xilli oo howlo kormeer ah uu ku tagay degmooyinka galbeed ee gobolka Banaadir sida Wadajir, Dhalkeeley iyo Gaxda ee magaalada Muqdisho. waxaana markaa oo imaanaya xilli dhawaan lagu tuuray oobiyaal xarunta xalane ee magaalada Muqdisho inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan. ciidamada maamulka Puntland ayaa howlgallay ka sameeyeen magaalada Boosaaso.